salaantaada u diyaara cutub ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiidada Tukarraq mudane madaxweyne ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمريو يدعو يكسر عن كسر Soomaaliland يبدو dadka shaqeeya ee qaranka u shaqeeya qaar waliba hawl bahaya laakiin waxa laga yaabaa shaqada inuu xoolo lacag ka raadinayo oo gaara adiga sharcad ka xidho inta badan qaliiro ee tan isagoo ku jiraan gaarin macaan iyo qaado dhikar hawl aan darteed mid waxa laga yaabaa inuu hal yahay inuu soo jeedo tuulo yahay inuu arday wax baro oo shay tarxanin oo macallimiinta waa taqaaniin qaar waa dhakhaatiirta oo isagoo habeenkii aroosa habeenkii hore guri kala saacadii arooska la meel laga dhaqaaqo telefoon baa soo dhaca waxa wala qalin baa kusoo waayo islaan baa isku gudbay soo orod waxaasoo ka soo arka qof waliba qaranka hawshu hayo dib intiisa dhib waa filantay laakiin shaqada la isku raacsan yahay oo laga yaabo inay dheer badan lahayd laakiin karaamo iyo ixtiraam iyo duco loo hayo bini aadamna wuxuu hela karaama ugu weyn halka ugu karaamo weyn ee ummaddu isku raacsan tahay hadda ummadahoo dhan ta Maraykan ta Shiina ta Soomaaliland iyo tuwaliba waxa weeye ciidamada qaranka waayo ciidamada qaranku waa astaanta qaranka maalintii diboodas ka baxday halkaa waxaad ku qaaday calanka Soomaaliland astaanta qaranka qof kale qaadan kara ma jiro qof oran kara qof meel maraya oo gaarigiisa wata ama lugeynaya ama socdo istaag oo maqlaya ma jiro qof ciidanka ah marka waxa weeye ciidanku awoodii qaranku sidaa garaado kasta ha ahaadee awoodana waa wada leeyahay ilaa jaanka u sarreeya ilaa dabla waxay leeyihiin waa iyaga dhexdooda markaas xukumayaan ayaa kolkaas kor dalacay adu wax ku saaciday laakiin ummadda oo dhan askar wada bulshada ama tiradeega xukuma halka joogto waxa ku tahay calankii awoodii waa soo joogto بلا أرض جوه حلم وياها وكرامة هو نفس العضو في الميجا نفس كرامة ودي هسكرمت وهي حيوان واحد هو يرجع هو يطلع لكن بلا أرض جوه وحكم وياها وحن يقرب يشرف يعرف فبدرنا بهالك الشغل وإذا كان ضيال إذا كان لكن أنا جاي وأروح يجيب oo baashafar xan horta ka mid yahay iyaga yaro tin ka yar ilaa maalinta waxay taageen fort iyo qaar badan oo sabbo dalkiisa mid waliba qaar baa laga ku sameeyay maraya hawsha gashaan ha ku alriyoobina hadda marka ko aragtaan gurihiina iyo dadkiina dalacan ha ka alriyoobina kuwa sabaha aagaleysaan iyo nafta xureysaan iyo dadka waxa qabanaysan ilaahay meel kale xisaabta ka siinaya واسكول كسيريا وريود كسيريا عافمات كيد كسيريا في آخر ذي كسيريا كسيرة سبقتها مركا دبتها قبتان يا دافرانتا يا هواها كذا مرنا با يا شيطان كيد دوسوس ترى مركا المرايين ما شاء الله سيط يا رب يجهش يا رب وايد هذا سولوات وحبت العذر ماذا هو حاسس كريبا
شريط توصلوا حق فرنسا ولا تشيد ولا توجا تضوع عرورنا أرجع كوريا واحد يشع عروس عسكرت إسكولية بلاش قلق أنت أسمع كودي أنا عروس عليه سوها مقراضي بشورون هو عجيب إلى عروسي يبدو مكيني وصار فرنسا waxay codsatay isagu ha maqlaan shay toosliga maqay todobada carruuraha bada hargeysa taaqada ku haya halka uu jooga waxa yeeshaa madaxweyne wax ka kooban ma isoo hayn dadka loo daafo ama carruurta waa la rafanaya laakiin carruurta iskuulada waa qaaliya carruurta ciidamada xagga hore warigaar waa raayay guntan oo laga joogo golayaasha xuquuqda sirta ilaahay ilaah wala aqligeeda halka maanta warkaan iyo farinta noo salaamahay horta waxaan nahay ciidan nabadoon oo aan cidda ku duulay ee dalkiisu ilaashanaya oo wuxuu ku soo xadgudba iyo wuxuu fadqaada ka wada qabanaya waxaan nahay ciidan aan cidda weerar ku ahayn waxaan nahay ciidan nabad soo waday intii uu jiray ilaa maanta la asaasay oo dadkana kala ilaalinaya dalkana ilaalinaya walaaladan iska soo jeedo reer Puntland weerar kuma nihin man nabcin waan nabad galeynaa iyagana inta leeg baan ka rabno waxaan doonaynaa waxaynu ku ayno ina dhaxtaalo dooda aan waa deegaan reer iyo waxa xadka ingiriiska inta naasta waa intaas inaynu geed hoosti ku xalilay ayna arka iska galay iyagana ilaahay inuu galaysiiyaan ka rajeynaya waayo soo baahan sabab kale oo dhamaanta wax hada lagu dhameyn karo oo geed hoosti lagu dhameyn karo waxay la tahay waa khalday ninka weer ku galay shan joor baa waxa ay yimaadeen ninka gobolka ka socda waa haysa iyo iigan iyo Afrika Union shan goor bay diyaaradaha dul maray xagga galowga aan dul maray shantii goor baa nabad waa la saxay afar qodob baan mar walba anoo idinka ka wakiilo ku heshiiyay waa oo gol anagu weerar mawlad duulimaad kuma nihin dal kale iyo dad kala toona cid walba nabad baan u wadaa gudaha baan ku wadaa waxaan heshiis ku nahay iyada oo dalkiis Somaliland caalamka aqoonsanaa ee loola jeedo Somaliland protectorate lixdankii ay waliba qayb ka tahay halka ay walaaladeen laga horyimaadeen aan joogsano inaan ka wada hadalno waxaan ogolaanay xabad joojin waxaan ogolaanay in maxaabiista la isu bedelo waxaan ogolaanay dadka deegaanka in loo soo daayo waxa la dhinac walba wixii gargaar iyo taakuleyn ay siinayaan dadka barakacayaasha ee abaar waxyeelay 6 bilood nimanka ka taliya garowe saaxiibadeen ayaa arrintaasi xaggooda ka dhamaanaa maantada hadda ku dhawaaqana diyaar been u nahay waayo inagu cidna weerar iyo calal xumo iyo daandaasi ku wada waxaan idinku ducaynaynaa oo idinku hambalyeynaa oo kalsoonahay inaa idinkoo naga doonaya dalkii daafacaysaan oo inta goora laydin soo waran marna inuu xitaa weerar rogaal celina difaacu mooyaane maynaan samayn marna iyagoo diyaargarooya maynaa difaaca intaan weerarka soo qaadan weerarka ku sababa akhawta attack oo suuq mar walba waxaan warnaya weerarka noo gelisa sabab waxa ka soo weerar jirtay wixii ka dareen difaaca lagu maada ilaahay inuu ugu gargaaray inuu istafaa waayo ninkoo ku soo cararaya hima barka laakiin inagu waxay doodo ku dhamaysanayna dagaal la uma socono dalkayga dhexdiisa aan uga haysataa waa nagu horjoogsateen waa idin fadhina wala xabada ku darsadaa laga daayay wala farta madana waa taaqwa dadka deegaanka walaaltinimo iyo wada tashi iyo Soomaaliya oo saan wadna arrintan oo socono farta iyo xasawaata aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa dadkiinu inay jecel yihiin inuu qof walba naftiisa horeeyo xishoodkii afka iyo niyada mooyaane ee waa ogtihiin tii koob caanaha sidii la wariyay haduu bulbasa kee boqolaal ilaa la bixiyay dac ilaa ka dac tuula Soomaaliland oo ciidanka qalbiga ku hay oo wuxuu dhashay dadkuna waa wada inta insha Allah waxaan ugu ducaynayaa fi akhrisan ilaahay oo haydin hayo in dhibaatooyinka badan ay qabtaan ilaahay inaynu waartiqaad xalilo inuu soo dejiyo waxaan ku amaanaynaa sabarka oo yarateen mutaaqatan ninkii qoyskiinu laakiin qaran baa dhisan qaran kale hawsha suulay aad iyo aad baa mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته